السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تننا وقيبتي لباد يودن بيسي تحناها كاكوبنا لبدا قيبود اينو كو ايغيني حبسيدي الانبقاء اي حبسيجي ميلاتري اي قلين سراكيشي سرسر اي SSDF. قيبتي ننا وحي كوبلاب ميساسيدان طاهر مير جبريل oo qisada halkii inooga sii wada waxa uu yiri markii raggu sida u kala qaybsamay anigu markaa iyo xubnaha qaarkood waxaan ku jirnay rag diiday in ay ka mid noqdaan ragga u hoggaansamay Itoobiya waxaan ku adkaysanay in aanan yeelin wax kasta oo ay Itoobiya noola timaado aduu iska soo dhaaf waxa la soo gaaray in ciidamadii Tigreega ahaa ee la dagaalamay dawladda Itoobiya ay magaalada Addis Ababa ee caasimadda ah soo hareereeyaan 74 saacadood ayay siiyeen oo u qabteen xukuumaddii Mingistu Haile Mariam iyo taliskii ciidamadiisu in ay isku soo dhiibaan intii aanay dhammaan 74 saacadood oo la marayo 48 saacadood askartiina ilaalinaysay intoodii badnayd waa ay baxsadeen oo meesha isaga carareen annana wali waxaan ku jirnaa xabsigii alanbaqa wax yar oo askar ah ayaa nagu haray oo na ilaalinaysa 6 saacadood markii ay ka hadhay saacadihii 74 saac ahaa ee loo qabtay askartu in ay isku soo dhiibaan oo dawladda oo dhammi isdhiibto oo dhammaantood intii askar ahayd ee ilaalada xabsiga ahayd markii ay 6 saacadood ka harsanaayeen ay dhammaantood naga carareen oo meeshii baneeyeen maalintaasi waxay ahayd taariikhdu bishii May 27keedii sanadkii 1991 markii ay askartu xabsiga ka yaaceen waxa ay noo baneeyeen dhammaanba albaabadii iyada oo aanay ciidina nasiideyn ayaa wax allaale wixii maxaabiis ahaa ee xabsiga alanbaqa ku jiray oo dhammaantood tiradoodu ilaa 1000 maxbuus iyo waliba 14,000 oo maxbuus oo kale oo iyana ku jira xabsiga guud ee weyn oo ah kan uu ku dhex yaalo alanbaqa oo la oran jiray Kaalsheele halkaasi ayaanu markii ay saacadu ahayd 3 galabnimo bishii May 27keedii sanadkii 1991 aniga iyo Cabdulqaadir Isbariije dadkii yaacay soo dhaxgalnay Cabdulqaadir markaa ma socon kareynin oo waxaan xasuusanahay in gacantiisa midig inta aan garabkayga ka ritay ayaan garab galay oo aan tartiib u soconay aniga oo garabka ku haya meeshii baanu ka soo lugaynay waxaan soo gaadhnay hotel meesha u dhawaa oo la oran jiray Gannett Hotel halkaasi ayaanu tagnay dadkii hotelkaasi joogay ayaana gartay oo waxa ay ahaayeen dadkiina waji yaqaanay 6 sano ka hor waxa markaasi joogay hotelka dad badan oo aan hotelka ka cararin maadaama dadku ay wada yaacayeen oo xaaladdu isbedeshay maalintaasi magaalada oo dhan wixii tagaasi ahaa way istaageen balse waxaan ku niri dadkii aan hotelka ugu nimid taxi noo raadiya nasiib wanaag taxi ayaan helnay halkaasi ayuu taxigii naga soo qaaday waxaan sidaa ku tagnay Ras Hotel oo aanan islahayn dad badan ayaad ka heli doontaan waxaan halka kula kulannay 3 nin oo shaqaalaha hotelka ka mid ahaa oo Tigre ahaa dhammaanba shaqaalihii kale waa carareen dad badan meesha ma joogo Ras Hotel waqtigaasi waxa uu ahaa 150 qol waxa ay 3 nin ee shaqaalaha ahaa nagu yiraahdeen war qolka aad doontaan seexda meesha aad doontaan hotelka ka dega waa wada furan yihiin qolalku ee ka aad doontaan seexda ay nagu yiraahdeen qolalkii baanu mid iska degnay oo aanu iska galnay halkaasi ayaanu degnay hotelku markaa cunto ma laha wax allayaal wax meesha yaala ma jiro markii aanu xoogaa joognay ee ay fiidkii habeennimadii tahay ayaa islaan derbiga hotelka wax ku karsanaysay ayaana xoogaa canjeera ah ka helnay oo aanu sidaa ku cunnay habeenkaasi Cabdilaahi Yuusuf wuxuu isagu waqtigaasi ku xidhnaa sanadahaas 6 ah ee aanu xidhnayn xabsiga military oo isagu alanbaqa nugulama jirin waxa uu ku xidhnaa xabsi ku dhex yaala xerada ciidamada militariga ee lugta askartii cararaysay ee xeradiisa joogtay iyo kuwii ilaalada xabsiga uu ku jiray ilaalinaysay dhammaantood markii ay meesha ka yaaceen isaga qolkii uu ku jiray ay dusha kaga qufleen oo kaga xidheen waxa ay ku yiraahdeen adiga waanu baqanaynaa oo ku sii dayn mayno laakiin maxaabiista kale oo dhan way sii daayeen oo albaabada ay u fureen habeenka dhammaan ciidamadu xiriyahooda ka yaacayeen ee aanu annana soo baxnay subaxnimadii xigtay 9kii subaxnimo ayaa dhammaan ciidamadii Tigreegi waxa ay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya ka soo weerareen dhinac walba 4 jiho ay weerar lixaad kaga soo qaadeen dhammaanba jihooyinka ay kaga soo qaadeen weerar dhinaca madaarka dhinaca aanu deganayn ee koonfurta dhinacii madaxtooyada aduu 4 jihaba waxay ka soo qaadeen weerar
gudaha ay magaalada u soo galeen. markii askartii ciidankii Mengistu Haile Mariam ilaalinaysay ay jabeen oo ay hal saac oo subaxnimo ay ku sii dhowdahay ayay iyaga oo yaacaya waxa ay qaarkood soo mareen xabsigii ciidamada lugta ee uu ku xidhnaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed. xabsigii ay is yidhaahdeen baarbaara qolkiisii bay fureen mise ninkaa dhex fadhiya waaba Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo kaliya. markii la xidhayay waxa uu qabay suud uu xidhnaa maalintii la soo qabanayay 6 sano ka hor weli suudkii buu qabaa oo xidhan yahay. boorso yar oo berigaa loo keenay oo calal yaray ugu jiraana meesha ayay garab taallaa. shalay markii qolkiisa dusha lagaga xidhayay ee loo diiday isaga in la sii daayo nin jenaraal ah ayaa ku yidhi haddii ay meesha kaa sii daayaan 50 bir qaado oo gaadhi ku raac. 50 bir ee lacagta Itoobiya ahayd ee uu ninkaasi uga tegay ayuu Cabdullaahi Yuusuf jeebka ku haystaa wax lacag ah. kuwii haddaba subaxdaasi cararayay ee askarta ahaa ee baxsadka ahaa markii ay boorsadii yarayd ee uu haystay qaateen dharkii uu xidhnaa kama ay furan oo way u daayeen. kabihii kama ay qaadan oo waa ay u daayeen. laakiin jeebadihiisii ayay baadheen waxaanay nasiib darra kala baxeen 50 bir ee uu haystay wax lacag ah. waxa ay ku yidhaahdeen ma fadhiyaysaa meesha mise waad iska baxaysaa? markaasuu ku yidhi war waan baxayaaye isii daaya. markaasay ku yidhaahdeen war xabad baa meel walba ka dhacaysa, meel walba magaalada xabad ayaa ka dhacaysa oo waad ku dhimanaysaaye maad iska joogtid halkaagan. markaasuu ku yidhi war aan dhintee iska kay daaya waan lugaynayaaye. xabaddii oo meel walba ka dhacaysa ayuu meeshii ka soo baxay oo iska soo lugayey. habeenkaa aan idiin soo sheegay ee aanu jiifnay Raas Hotel aniga iyo Cabdulqaadir Isbarriije maanaan seexan, waanu soo jeednay sidii baan waagu noogu baryey. waddadii yarayd ee hormaraysay Raas Hotel ayaan subaxnimadaa taagnayn ilaa intaa waxaan sugaynaa bal in aan war ka helno raq iyo ruux meesha uu ku dambeeyey Cabdullaahi Yuusuf. 3 saac iyo bar subaxnimo markii ay marayso saacaddu aniga iyo Cabdulqaadir Isbarriije oo meesha taagan jidka ah iskana soo horjeedna oo sidaa u murmayna oo aanu ku murmayno war ninkii Cabdullaahi raqdiisii iyo nolol hadba wixii aanu ku ogaano aan raadino oo aan u lugayno goobtii uu isagu ku xidhnaa ayaanu meesha taagnayn. waxaanay markaa meeshaasi masaafo ahaan noo jirtaa haddii ay ugu yar tahay ilaa 5 kiiloomitir. waxaanay ahayd xerada militariga lugta. annaga oo labadayadii sidaa isku hortaagan oo aan ku murmayno aan lugayno inkasta oo aanu Cabdulqaadir Isbarriije waqtigaasi wax lug ah tahlaynin oo aanu lugayn karin ayaa Cabdulqaadir waxa uu igu yidhi war daahir xaggaaga dambe gadaashada bal eeg waxa soo socda waa Cabdullaahi Yuusuf. markii aan sidaa gadaashayda u jalleecaybaa mise waxaaban arkayaa ninkii Cabdullaahi Yuusuf oo aan cagaha qaadi karin oo lugaynaya cagahana dhulka jiidaya. waxa uu lugaha isku daba dhigayaa sidaa lugba mar buu tartiib soo qaadaya oo ta kale hor dhigaya oo si degan u socda. aduu mar waan naxnaa marna waan faraxnaa. naxdinta iyo farxaddu mar bay isku meel galaan. waanu ku yaacnay oo waanu ku dhegdhegnay. gacmaha ayaanu qabannay oo qolalkii hoteelka ayaanu qolkayagii geynay. wuu iska qubaystay oo halkaasi ayuu qadar kooban ku nastay. halkii baanu dhammaantayo ku nasannay. taariikhdu waa 28 bishii May sanadkii 1991. annagu shalay oo ay bishu ahayd 27 ayaanu xabsigii Aanbaqa ka soo baxnay. isna maanta oo 28 ah ayuu xabsigii ciidamada ka soo baxay. habeenkii sidaasi ayaanu meeshii Hotel Raas ugu hoyanay. xidhiidh ma haysano, taleefan ma jiro, cid kale ma joogto. taleefanada oo dhammi waa ay go'an yihiin oo telefoon soo gala mooyaane mid aad dirsan kartaa ma jiro. wax alla wax jiraa ma jiraan. subaxnimadii dambe ee bishu ahayd 29 ayaa ninkii Cabdulqaadir Isbarriije ma socon karo isagu. aniga oo miisaankaygu 38 kiilo yahay ayaa ragga meesha jooga ugu xoog roon oo dirqi ku soconaya. iyagana maxaad u malaynaysaa? waayo da ahaan waa iga weynaayeen aad baanan anigu uga yaraa. marka xaaladdu halkaa marayso aniga iyo Cabdullaahi Yuusuf ayaa israacnay. waxaanu u lugaynay ilaa Hilton Hotel. waxa la yidhi maalmahaasi dadka ajaanibka ah ha la geeyo. dhowr saacadood markii aanu sii soconnay ayaanu gaadhnay hoteelkii Hilton. waxa aanu hoteelka kula kulannay dadna garanaya iyo kuwo badan oo aan garanayn. safaaradihi ayaanu aragnay. wax aliyaalo wax noo jixinjixa ayaanu weynay. qaar baa nagu yidhi waxaad u tagtaan gudida laanqayrta cas ee Red Cross. laanqayrtii casayd baanu u tagnay. waxba way noo qaban waayeen. waxa ay nagu yidhaahdeen erjiyo iyo waxaa soo qorta. ninna yaqaanay oo BBC-da u shaqeeya oo la odhan jiray Peter Biles ayaa yidhi war aniga ayaa tala idiin haya. markaasaan ku nidhi maxaa talo noo haysaa? markaa magaalada Addis Ababa taleefanada dibadda laga soo wacayaa waa ay furan yihiin oo xidhiidhkaasi waa jiraa, balse taleefanada gudaha ee aad dibadda u wacayso ma shaqaynayaan oo ma baxayaan
mana diran kartid. ninkii BBC da u shaqaynayay ee Peter Biles waxa uu nagu yidhi war xagee degantihiin. waxaanu ku nidhi waxaanu degannahay Ras Hotel. waxaanu u sheegnay qolka aanu kasii degannahay. waxa uu nagu yidhi iska taga dadkiinii baa idiin soo gurman doonee galabta ayaan idinku soo xidhayaa buu yidhi laanta af Soomaaliga ee BBC da 5 galabnimo ayaan idinku soo xidhayaa orda oo hoteelkiina taga hawshaana igu daaya anaa idinku soo xidhaye ayuu yidhi. markii uu sidaa nagu yidhi ayaanu u dhaqaajinay xaggii hoteelkii aanu deganayn ee Ras Hotel. xaggii hoteelkii baanu u luudnay oo u sii soconnay. sidii aanu u sii soconnay ayaanu qolkayagii tagnay 5 galabnimo oo wax dhiman oo aan gaadhin ayaa waxa markiiba gabadhii wariyaha ahayd ee BBC da u shaqayn jirtay ee la oran jiray Saynab Maxamed Jaamac nagu soo dhufatay telefoonkii. qararaf telefoonkii baba dhacay durba. telefoonkii baan qabtay anigu. waxa ay markiiba tidhi walaalow ma la hadli karaa Cabdilaahi Yuusuf. markaasaan ku idhi hoo waa kane inta aan u dhiibay gacantii telefoonka Cabdilaahi. annaguna markaa naftaan haysa. waxa uu halkaasi ku bixiyay galabtaas waraysiga taariikhiga ah ee meel walba laga maqlay. waraysi ay laanta af Soomaaliga ee BBC du la yeelatay Cabdilaahi Yuusuf Axmed. waxaan u malaynayaa subaxnimadii maalinta xigtayba waxaanu haysanay lacag dhan $10,000. habeenkiina taleefan baanu ka seexan weynay. sidii taleefanku noogu soo dhacayay kolba ee aanu afka isku darin ayaa Cabdilaahi Yuusuf yidhi markii aanu ka seexan weynay war bahalka kala qaad oo iska rabdhig. ma seexan karnee bal aynu xoogaa seexannee bahalka naga kala qaad. meel walba gudo iyo dibad ayaanu looga soo gurmaday. wixii intaa ka dambeeyey waa sheeko dheer oo u baahan inaan waqti kale ka sheekayno. sidaas waxay yidhi Daahir Mire Jibriil oo ka qisoonayay xabsigii lagu guray saraakiishii sarsare ee ururkii SSDF ee uu hogaaminayay Allahu naxariistay Cabdilaahi Yuusuf Axmed iyo gaar ahaan isaga iyo Cabdulqaadir Isbariije wixii ay ka muteen xabsiga Alambaqa oo ka mid ah xabsiyada adduunka ugu xun ee taariikhda soo maray. saaxiibayaal mawduucaas kooban ee labada qaybood ahana halkaas haynoo joogo inta aynu qaybo kale ku kulmi doonno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.